hurdanimadu diido ku hiloobay baane
ciida ciid wanaagsan baan leenahay aniga waa Faaiisa Cabdullaahi Liibaan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan marti sharafta meesha isugu timid ee sharafta leh gudoomiyaha waaxda saddexaad Taliil Ibrahim Xuseen ilaahay maada ka gaadho waa insha Allah waa la imaan karaa amnigeedana meesha aad baa la isugu haleyn karaa insha Allah hadii ilaahay idmo hal yimaado kulay waad daawanaysaa wana arki doontaan hadii ilaahay idmo dad badan oo kale halkaan lagu soo dhaweeyay waa rajeenayna anakana waa lagu soo dhaweeyay sida wacan oo lagu soo dhaweeyay waan ka mahad celinaynaa magacaygu Dr. Sakariya Cabdullaahi Tuureere waxaan ka mid ahay dhalinyarada maanta halkaan dalxiis ku imaaday runtii waxaan joognaa deegaan aad u qurux badan dalxiiska iyo sawirada kaliya soo baxnay laakiin xaawad tagna waxa xunu iyo waxbaan ka bixweynaa hadda taa gacmo soo dhaqanay gudoomiyaha waaxda saddexaad tahliil oo maanta halkaan keenay asina xalay gudoomiye waa maasan tahay waxaan jecelnahay meeshaan waqti kasta inaan ugu soo dhaweyso annagana imaano dhalinyarada asaageena aan keenno adina waxaan ka rabnaa inaad connection ka saxdo oo dadka jiheyso annagana kugu soo jiheyna si meeshaan loo wada imaado oo lagu soo dalxiiso daynina waa meel lagu dalxiiso la imaado oo indhaha uroon horena waa loo dhihi jiray haddana annaga maaragtay idin xaqiijinayno dhammaantiina waa imaan kartiin insha Allah qof kasta video fiirsato oo nala soo xiriirtana insha Allah gudoomiyaha ku soo xiri doona gudoomiyahana asaan ka sugeynaa insha Allah inuu qof kasta u baahato meesha inay imaado tiimka sinay imaado waana ballan qaadi aad u maasantii ku soo dhawaad halkan Sheekh Maxamed Fiidshe waxaan kamid ahay dhalinyarada soo booqatay waaxda saddexaad ee degmada Daynila waaxda Burdheere gudoomiyaha waaxda Taliil Daabaan waan u mahad celinayaa sida qurux badan amniga oo shaqeeyay bilicda degmada oo sameeyay wadooyin qurux badan oo falay oo qaarkood gacanta dadka ku faleen deegaanka bilicda aad buu qurux badan yahay beeriga qurux badan u jeedaan haatan meel loo soo wada dalxiis taga waaye dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waaxda saddexaad ee degmada Daynile oo ah waaxda ugu qurux badan degmooyinka dalka Soomaaliya marka la yiraahdo boqosho inay ku yimaadaan waa meel aad u qurux badan waa meel centraalkii gobolka Shabeellada Hoose gobolka Banaadir ayaan joognaa waa meel bilicdiisa ay tahay sidoo kale waxaan leeyahay dawladda federaalka maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Daynile Jaafar dhammaan waaxda ilgooni ha ku soo eegaan si bilicda deegaanka u dhismo waxbarashadii iyo adeegyada bulshada la wada helo waxaan leeyahay gudoomiyaha waa in lagu mahad celiyaa dhammaan u mahad celinaa anaga dadkii dalxiiska ku nimid ayaan kamid nahay maanta ma filayn in degmada Daynile sidaan ay tahay quruxdeeda ma sha Allah waxa leenahay dadka ka shaqeeyay maamulka degmada Daynile iyo waaxda saddexaadba dhamaantood waad maasantiin dalxiisayaashan waxa leenahay degmadan waa degmad dalxiis ha loo soo dalxiis dhammaan aad u maasan yihiin maamulka halkaan joogo amniga haddaan ka hadalnana amniga aad iyo aad u sareeya ma sha Allah waad soo booqan kartaan wax dhibaato ma lahan dhammaan intii iga soo horeysay dhammaan khudbad jideeyay waxaan leeyahay aad iyo aad u maasantiin maanta meeshaan waxaan ku qaadanay jawi aad u qurux badan beereeda lama soo koobi karo waxyaabaha tafacaadkeeda waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxyaabaha wadankiina aad ka aaminsantiin ma wax jiro waa soo booqan kartaan waad imaan kartaan waad maasantiin